wararkii ugu dambeeyay geeska Afrika, Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa sii wado dagaalka ka dhanka Al-Shabaab gaar ahaan gobolka Shabeellaha iyo Galmudug. Howlgallo militari ayaa xoogeysanaya, laakiin weeraro, qaraxyo iyo dilal qorsheysan ayaa weli dhacaya. Waxaa socda qorshe lagu bedelayo ciidamada ADMIS si mas'uuliyadda amniga si buuxda loogu wareejiyo ciidamada Soomaaliya. Dhanka kale, Itoobiya xiisado ayaa ka taagan gudaha Itoobiya gaar ahaan gobolka Amxaarada. Dowladda Abiy Ahmed ayaa wajahaysa cadaadis gudaha mucaaradka oo huweysan. Inkastoo dagaalkii Tigray uu yara degay, haddana khilaafaad cusub ayaa soo baxaya. Dhanka kale, Suudaan, dagaalka u dhexeeya ciidanka dowladda iyo Rapid Support Force ayaa weli socda. Magaalooyin badan oo Khartoum ah ayaa burbur weyn soo gaaray. Kumanaan qof ayaa barakacay, xaalad bani'aadamnimo oo adag ayaa jirta. Dhanka kale, Eritrea waxay weli door ka ciyaaraysaa siyaasadda gobolka, inkastoo ay si toos ah uga aamusan tahay warbaahinta. Waxaa jira warar sheegaya xiisado qarsoon oo u dhexeeya Itoobiya iyo Eritrea. Dhanka kale, Kenya waxaa ka socda dibadbaxyo la xiriira sicir barar iyo canshuur kordhin. Madaxweynaha William Ruto ayaa wajahaya cadaadis siyaasadeed oo kordhaya. Geeska Afrika wuxuu ku jiraa xilli isbeddel iyo kacsanaan isku jira. 3 arrimood ayaa ugu waaweyn: amni, Soomaaliya iyo Suudaan. Siyaasadda gudaha, Itoobiya iyo Kenya. Isku dhacyo qarsoon, Itoobiya iyo Eritrea. geeska Afrika ma aha oo kaliya meel qariirad ku taal, waa meel dunida ku tijaabiso awooddeeda. Maanta wax ka socda halkaas ma aha wax yar. Su'aashu waa ma aragna wax dhabta ah mise waxaa nagala qarinayaa. Gobolkan yar wuxuu isku keenayaa quwado isdiidan, dagaal, siyaasad iyo dano qarsoon. Soomaaliya weli dagaal ayay ku jirtaa, Itoobiya gudaha ayay isku khilaafsan tahay. Suudaan waa burbur dab ah, Kenya shacabka ayaa kacay. Laakiin marka aad isku xirto waxaad arkaysaa sawir ka weyn, aad uga weyn. qaybta koowaad, Soomaaliya dagaalkeedu ma aha mid cusub, laakiin maanta waxaa jira wax isbedelay. Dowladdu waxay sheegaysaa guul, laakiin Al-Shabaab weli way joogaan. Su'aasha dhabta ah ayaa gacanta ku haya dhulka. Ciidamada ADMIS way baxayaan, mas'uuliyadda waxaa qaadaya dowladda Soomaaliya. Haddii ay guuldareystaan, yaad u malaynaysaa daawada in meesha uu buuxinaya. qaybta labaad, Itoobiya iyo Eritrea. Itoobiya waa waddan awood badan laakiin dhaawac gudaha ah leh. Abiy Ahmed wuxuu ku jiraa cadaadis gobolka Amxaarada, xiisad, hub, kacdoon. Laakiin sheekadu halkan kuma dhammaanayso. Eritrea waa ciyaaryahan aamusan. Marka Itoobiya daciifto, Eritrea way dhaqaaqdaa. taasi waxay noqon kartaa dagaal cusub oo qarxa. qaybta saddexaad, Suudaan ma aha kaliya dagaal, waa burbur qaran. Rapid Support Force iyo ciidanka dowladda waxay burburiyeen caasimaddii Khartoum, waxay noqotay meel dagaal. Dadkii way carareen, qaar badan ma helaan cunto ama biyo. Laakiin dunidu waxay u muuqataa inay iska indhatirayso. qaybta afaraad, Kenya waa meel kale oo qarax ka socda, laakiin si kale ma aha rasaas, waa caro. William Ruto wuxuu wajahayaa shacabka, canshuur, sicir barar iyo dhalinyaro careysan. marka dadku kacaan, wax kastoo isbedeli karaan daawade. markaad isku xirto dhammaan, waxaad arkaysaa hal xaqiiqo: geeska Afrika wuxuu galay marxalad cusub, dagaal, qalalaase iyo isbeddel. laakiin su'aasha ugu weyn waa, ma tani waa bilow mise waa dhammaad? daawada, taariikhdu mar walba way qortaa, laakiin mararka qaar anaka ayaa dhex joognaa, anaka oo aan ogeyn. sunnaha ilaahay waxaa ka mid ah addoonku wuxuu dul siiya litujsaa kullu nafsin bimaa tascaa. waa ballan, laakiin xilliga lama sheegayo macnaha. laakiinse waa ballan. qodobkaas waxa weeye Soomaalidu way isku imanaysaa. waa koobaad, qadiyadaas Soomaali siyaasadda waxay u saysaa qadiyadaas. qodobka labaad, Soomaalidu khayraad beelaha kala duwan gartay. dowladaha iminka ku hurdamaya ma ogolaanayaan in North Korea, South Korea Soomaalidu noqdaan. kililka shanaad shidaalkiisa, Soomaaliya shidaalkeeda waxaan wax la rabaa in laga dhoofiyo Somaliland. Somaliland waa xudunta Soomaaliya laga badbaadin doono haddii la yiraahdo. intellectualka Soomaalidu way fahmaan. waa in halka badbaadada laga wada shaqeeyaa. waa xudunta laga badbaadin doono Soomaalida haddii la yiraahdo. waa halka la isku iman doono. laakiin jidkeedii miyay hisaabay kulata? muhiimadu jidkeedii ma haysa. muhiimadu ma aha jidkaabiyan la wiil isla bakalanba. waxa weeye hal qodob baan rabnaa inaan fahno. أنا حكيت له وتاريخ
dowlad Soomaaliyeed inta xamar ka dhalatay Soomaali ma saamayn taariikhda macnaha lays hargeysa dowlad baa ka dhalatay dowladda baa jamhuuriyadda Soomaaliya in listo u sabahayd xorriyadda in Djibouti Ethiopia aan qaadan u sabahayd heshiiskii Arus agreement u sabahayd ee Soomaaliland Kenya maanta ku raaxaysanaya dhaqaalaha ka samaystay caruurteed ku aaminay heshiiskan bay ku degan yihiin okay halka qole lagu guul dareysto waa Soomaali galbeed wixii markaa la waayay dad ba u ordiyay Soomaha abaalmarintu ma baqato isla aad ba sheegay in saacada aad akaad ukhfiha litursa kullu nafsin bima tas'a okay marka maxay sheegaysaa marka wixii markaa loo ordiyay bay dib u heliyaan hadda waxa soo bixi doon waqtiyada dhow hadii la hado in dib loo furo faylkii Hawd Reserve Area oo la maqlo meedo Abiy Ahmed ma laha batal dhul laga wareejista hadii deer loo yahay rasuul saaruhu iskama laha faylskan dalal baa haya oo haya dib loo furaya kilku saddex buu u kala kici doona hadii la hado Hawd Reserve Area ogaadeenaya iyo qaybta kale laga yaabaa in oromadu gacanta laga dhigto laakiinse labada qaybood waxa weeye qayb Hawd Reserve Area soo noqonaysa marka Hawd Reserve Area soo noqoto hadii ilaahay raahdo oo gaashaami hadii laga xukumo ba aragtidu isbedeli doonta gartay oo la raadin doona article hadii ilaahay raahdo insha Allah gartay haddaba aqoon Muuse Soomaalidu meelo kala badan oo kala duwan bay joogaan haddana waxa ugu badan kuwa dabcan laga yaabo in barnaamijkeena daawanayaan kuwa Mareykanka joogaba ugu dambeyntii kuwa Mareykan joogo maxaad kula talin lahayd liyahow Soomaalida Mareykanka waxaan kula talin lahaa laba qodob oo muhiim ah qodobka waxa dalkani wuxuu qayb ka yahay badbaadada Soomaalida waxa dalkan dhaqaale lagu dhisay waxa dad la quudiyo abaaraha dhacay dad baa la caawiyaa qayb buu ka yahay dadka Soomaalida wuxuu siiyay fursad buu siiyay in systemka dalkan ay raacaan ay ka fogaadaan wixii xadgudub ah gartay si umadahan noqdo umad la aamini karo qodobka sartaan oo laha qodobka labaad waxaan oo laha umka mashaakilku kama dhamaadaan mushkiladaha Mareykan dhaxdiisana ku haystay gulba gobolkan waxa kamid ah caruurtii isdilaysa inaan loo qaadan arin sahal caruurtii baa istishay laakiin cilmi baaris laga sameeyo oo si hagar la'aan loo baxo oo waqti runa la geliyo oo mushkilada caruurta haysata inaan laga fadhiisan ama sida la kaashado ama bulshadu dadka intellectualka ay waqti hawraan ama cilmi baaris hala sameeyo in mushkiladaasi runa loo wajaho oo aan la fudaysan baan kula talin lahaa arsidayda gartay shukran aad iyo aad u mahadsantahay barnaamijkan waa kii ugu horeeyay waraysan isugu imaanay marka si degan oo isfahan leh oo fariimaha ay gudbayaan ayaan u sameeynay dabcan laakiin se kuwa dambe ayaynu si fiican isku waajihi doonaa hadduu eebeedmo